gobolkan oo ay soo qabanqaabeen ururka dhalinyarada Isliiwood loogana hadlayay ammaanka xaafadda Isli ayaa waxaa ka soo qayb galay General Cali Xaashi Baraal oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jiina oo ka socda xafiiska xildhibaanka degmada Kamakunji dhalinyaro iskugu jira hablo iyo intii uu socdo kulankan ayaa mas'uuliyiinta ka hadlay muujin sida ay ugu xun yihiin dhibaatooyinka amni darro iyaga oo hay'adaha ammaanka ugu baaqay in wax laga qabto dhalinyarada xilliyada habeenkii telefoonada ku dhex qaata xaafadda barnaamijka wacyigelinta markaan u soo noqdo aad buu muhiim idinkugu yahay anigu waan akhriyay inta badan barnaamijkan haddaad ku dhaqantid ood ka qayb qaadato ood isu gudbisaan macna waxa weeye wacyigelin marka la yiraahdo inta meeshaas hadda ku kulantay oo isu timid wacyigelintu ma saameynayso wacyigelintu waxay saameynaysaa inta qoraalkaan aragta inta maxaan ku raahdaa cajaladahan aragta wacyigelintu waxay saameynaysaa inta adiga kale aad ku wacyigelin karto oo guryaha jooga oo nasiibka oo xafladda inay ka soo qayb gasho inaad u sheegto oo tira maanta xafladdaas aan ka qayb galay saasaa looga hadlay saasaa wax uga jiraan maslaxadeena ku jirta in adiguna wacyigelinta qaybtaada ka qaad kadib waxaan mahad u celinayaa Isliiwood oo hawshan adag xaafadda ka qabato qaasatan wacyigelinta dhalinyarada aad ayaan ugu hambaleynayaa marka labaad waxaan leeyahay Isliiwood yeysan ka daalin hawsha ay wado ay u hayso bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii gaar ahaan dhalinyarada wacyigelintooda iyo madadaalintooda waana muhiim dad bulshada ka mid ah inay u istaagaan dhalinyaradooda si ay u garaan muddo badan ayaan dawladda ka codsanaynay in xaafadda Islii saldhig boolis laga furo maanta ilaahay mahadiis saldhigii waa la furay 3 maalmood ka hor la furay wuxuuna ku yaala wadada Moratina Bomani Shelter ayuu ku dhagan yahay waa saldhig xaafadda loogu tirigalay uu furan yahay habeenii maalin uu shaqeynaya waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee reer Islii inay saldhigaas la shaqeeyaan anaga madaxda xaafadda dan ka mid nahay iyo ganacsatadaba waxay u istaageen saldhigaas inay la shaqeeyaan ay dayactiraan qalab kasta u baahan yahay inay garab ku siiyaan sidii saldhigaas uu noqon lahaa saldhig ka duwan saldhigga Bangani gabagabadii agaasimaha guud ee ururka dhalinyarada Isliiwood Burhaan Imaan oo kulanka ka hadlaya walaac ka muujiyay xaalad amni darro oo soo wajahda ururka isagoo tilmaamay in ururka dhalinyarada Isliiwood yahay urur dhalinyarada wax badan u qabtay asbuucii la soo dhaafay bisha hadda la soo dhaafay 21-koodii Grand Royal waxa ku leeyahay xaflad oo la yiraahdo Peace Forum oo wacyigelin ahayd anigu xafladii u sii socda waxa jiray nin oo iska dhigay inuu yahay sheekh inuu hadda koor ugu kulmay jidka aniga oo wuxuu yiri waxa xaafadda sidii ka sameeyay hadii aad joojinin madaxan ka goynaa waxaan u istii inuu yahay qof xoogaa si wax ka yimid qof waala ninkii sheekh ahaa oo sheekh iska dhigayay ee jidka ugu la hadlay ee ugu yiri qoortan ka goynaa hadii aad ka dhaafidid dhalinyarada caawinay aniga marka waxaan isleeyahay inuu wax ma sameeyay dhalinyarada caawiya dhalinyarada qof ku imaan wuxuu kaleey waxaan rabaa inay heesaha aan sameeyo fadan hees igu caawiyo iga soo saar heesteeda qof wuxuu leeyahay inaan gabay sameeyo rabaa caawi qof wuxuu kaleey si filimada loo jeedna barta rabaa qof wuxuu kaleey computer rabaa inaan barto qof wuxuu kaleey si mariya loo xaysiyo inaan barta rabaa marka sheekhu wuxuu ugu yiri magacaaga Burhaan miya waan ku qoslay waxaan ahaa aniga Burhaan aan ahay wuxuu yiri dhagtu ugu soo dhaweeyay meeshada marayay wuxuu yiri hadii waxa xaafadda ka wada aad joojinin waxa arki doontaa inaan qorta ka gooyo aniga waxaan siiriniyo ilaahay wax dilay waxna nooleeyay nacas ninkan nacas waa mid xanuunsan way waxa uu ciyaar u qaatay Cabdi Qani Xasan Walqoor dheere TV-ga caalamiga Royal Nairobi